السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. noloshu waxay i bartay in waxa ugu muhiimsan uguna qaalisan uu qofka haysta ay tahay waqtigiisa si fiican uga faa'iideyso waqtigaaga. noloshu waxay i bartay mabda aad u muhiim ah waana mabda'a tariinka uma istaaga mana sugo qof aan isaga sugaynin noqo qof sugaya fursadaha noloshiisa soo maraya si aad uga faa'iideysato fursadahaas. noloshu waxay i bartay in aamusnaanta ay ka awood badan tahay hadalka iyo in hadalku yahay muraayad laga arka qofka. noqo qof aamusan oo ay aamusnaantiisa ka hadlayso. noloshu waxay i bartay mabda' ah ixtiraam way ku ixtiraamayaan, ha qiyaamaynin hana iskibrinin, sidoo kale ha noqon qof iska jilcan. noloshu waxay i bartay in qofkii hurdadiisu badan tahay uu walwalkiisuna badan yahay, sidoo kale guulaha uu xaqiijinayaan ay yar yihiin. ha hurdin in badan si uu walwalkaaga u yaraado. carabtu waxay ku mahmaadaa man talaba alculaa sahira layaali, ninkii doonaya meel sare inuu gaaro habeenkii ayuu u dhafraa si uu meesha sare u gaaro. noloshu waxay i bartay in guushu tahay mid qadaran, adiga keliya fiirfiiri hareerahaaga, iskuna day inaad wax ka beddesho hareerahaaga. noloshu waxay i bartay in sacaadadu iyo farxadda ay tahay dhoolacadeenkaaga imaanaysa saaxiib xili aad ku sugan tahay dhibaato iyo murugo. u dhoolacadeeya dadka idinku xeeran si aad farxad u gelisaan. noloshu waxay i bartay arrimo fara badan oo aanan ka daalini sheegidooda, laakiin waxaa hubaal ah in weli aanan ka zuulin in noloshu ay wax i barto aniguna aan ka barto. waa walaalkiina Cumar Maxamed, halkanina waa kanaalka Cumar Maxamed. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.